olole nadaafadeed oo ay si wada jira uga qayb qaadanayaan maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco wakiilada wasaaradaha gobolka shirkadda leerka ee Badar qaar ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco iyo xogayaha fulinta ee dawladda hoose ayaa si ballaaran looga fuliyay gudaha magaalada Burco hawlgalkan ay horkacayeen barasaabka gobolka Togdheer Axmed Cumar Xaaji Cabdilaahi Xamarji iyo duqada Burco Maxamed Muraad oo ahaa mid aan loo kala harin ayaa waxa kamid ah wasaaradihii ka qayb qaadanayay wasaaradda caafimaadka oo shaqaalaheeda iyo ardayda ku jira dugsiga caafimaadka ee Burco oo aanu kala harin ololaha si ballaaran ee nadaafadda laga fulinayo gudaha magaalada Burco waxa kale oo kamid ah wasaaradihii iyaguna ka qayb qaadanayay ololaha nadaafadeed wasaaradda deegaanka xanaanada xoolaha ciyaaraha hawlaha guud dib u dejinta duulista hawada iyo wakaaladda biyaha ee Burco gudoomiyaha gobolka Togdheer Axmed Cumar Xaaji Cabdilaahi Xamarji oo ka hadlayay goob kamid ah goobihii ololaha nadaafadeed ka socday ayaa sheegay in laga midaysan yahay ololahan nadaafadeed isla markaana ay ku tartami doonaan wasaaradaha gobolka lana gudoonsiin doono shahaadooyin kala duwan jira tartanka wasaaradaha runtii sheegi baayo laakiintiise waxa soo bixi doona inay ku kala mutaystaan shahaadooyin shacbiga magaalada Burco aanay xaqii dadaalkii faraha badan looga baahnaa ilaa imikaana ka arkay waxa la fadhiga ka kaca nadaafadiina ilaaliya gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Maxamuud Yuusuf Ubaxde duqa degmada Burco Maxamed Muraad gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka ee degmada Burco Maxamed Xasan Jaamac Xoday iyo xogayaha fulinta ee dawladda hoose Cismaan Maxamed Sheekh ayaa uga mahadnaqay cid kasta oo ka qayb qaadatay ololahani iyagoona si gaar ah ugu mahad celiyay shirkadda leerka ee Badar oo iyadu ay shirkadda kaliya ee maanta ku weelinaysay ololahani nadaafadeed inaanu si dhow iyo si dheer baan u sheegno shirkaddan leerka ee Badar waa shirkad aan daalis lahayn barnaamijkan waa barnaamij ballaaran oo maanta lagu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka ololahani oo ahaa mid ka duwan kuwii hore laga furin jiray gobolka Togdheer marka loo eego miisaanka iyo culayska uu maanta lahaa ay ka qayb qaadanayeen maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco isduwayaasha wasaaradaha ee gobolka shirkadaha ganacsiga iyo dadweynaha magaalada Burco Cabdi Farax Cabdilaahi telefishinka qaranka